daacadnimada waa la gataa arag daacadnimada waa la gadanaa ma jiro mataqaana qofka muwaadinka ma ku helaa shaqada ama mataqaana wuxuu u qalmo ma ku helaa daacadnimada laga gadanaa badan oo kamid ah khiyaarta carabka ay ku wada dhufteen oo ah dadkii inay maxaan ku idhahdaa dowladdii ay in badan oo kamid ah interestiyo badan ay ku qabaan yani oo dhinacyo kala duwan ah taas marka waxay keenaysaa in maxaan ku dhahaa af wax cunay xishow inay meesha ka jirto sayid maxamed cabdulla xasan allah naxariista ayaa wuxuu leeyahay rabbaa deeq leh roob baa qabow raaxa nabad baa leh dadka muxuu dareensiinayaa nabaddu inay tahay nolosha lagu raaxaysto xooga waxaan saari doonaa doorka bulshada rayidku ay ku leedahay dowlad wadaaga iyo nabadda marka kolley su-aalaha ideas bay u badan yihiin laakiin waxaan banalka ama dadka muxuu ahaayey ka qaybgalayaasha iyaga laftirkooda doorkoodaan siinaynaa marka su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa maxamed yuusuf maxamed muxuu yahay doorka ururada bulshada rayidka ama bulshada rayidka guud ahaan ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo dowlad wanaagga ay ku leeyihiin muxuu yahay kadibna waxaan u gudbi doonaa tiimamka kale waxay ku darayaan su-aalo kalaa jira marka soo dhow waa mahadsan yahay xiriiryaha iyo bahda macadkaba bulshada rayidka si guud maanta oo dhan akhyaartii naga horeysay iyo ustaad shaatax ayaa ka hadlayay qeybo kala duwan ay ka kooban yihiin oo baha kala duwan ah markii laga hadlaayona dowlad wanaaga iyo nabadda iyo markii laga hadlaayo waxyaabo badan oo iskaaba ayay ka sabaysmaan marka bulshada rayidka waa qeyb ka mid ah qeybahaas iskaabaya aslan waxaa statekiia qeyb laga rabaa qeybta kale waxaa waaye bulshada rayidka inay kaabaan iyo dhinacyadii kale ee kala duwanaa bulshada rayidka marka roolkoodu waa rool waxay u dhexeeyaan dadkii shacabka ahaa iyo waxay u dhexeeyaan stateki ayaga marka waa linkiga isku xiraya labadaas dhinac dadkan shacabka ah oo problemska faraha badan iyo mashaakilaadka badan qaba iyo qoladan stateka joogto oo wax badan aan war ka haynin oo siyaasadda ku mashquulsan waa meeshii xalqatul wasligii ama connectionkii ka dhexeeya oo isku xiraayo waaye so meeshaas marka aan ka fiirino marka doorkoodu wuxuu noqonayaa door aad muhiim u ah oo maxaan ku yidhaahdaa sina looga maarmaynin dhinaca nabadda markii laga hadlayo marka ama nabad dhiska ama nabad samaynta ama maxaan ku dhahaa nabadda guud ee stateka ay ku taagan tahay waxaa jiro aragtiyo kala duwan oo marka laga hadlayo nabadda iyo dadka wada noolaashahooda si gaar ah wadamada oo maxaan ku dhahaa jilicsan ama conflictii kasoo baxay ilaa 3 heer ay maxaan ku dhahaa looga shaqeeyaa nabadooda heer ka mid ah waxaa waaye in grassroots maxaan ku dhahaa la sameeyo oo nabadayna hoos laga soo bilaabo oo bottom up la sameeyo bottom upka marka waxaa waaye qeybta bulshada rayidka kasoo bilaabmaysa oo si sare maxaan ku dhahaa ilaa stateka in la gaarsiiyo ay tahay iyo qeyb yani ama hab kale oo ka imaanaysa dhinaca stateka ayada inay ka shaqeyso oo hoos ay usoo daadajiso nabadayntii ay usoo daadajiso iyo aragti kale oo qolooyin kale ay qabaan oo ah in laysku dhafo waxaan oo mid kasta inuu leeyahay weakness uu leeyahay tusaale ahaan marka bulshada rayidka keliya ay waxaa laga soo dhisaya xaggooda la yidhaahdo wixii wax horta sustainay noqonayaan oo hoos kasoo bilowday laakiin mushkilada qabsanaysaa waxay noqonaysaa in aysan maxaan ku idhahdaa kor ay gaarsiisneen oo awood fulin fiican inaysan heli karin dhinaca kale marka kor laga soo dhiso oo stateka dhinaciisa laga yimaadana ayadana caqabad waxaa jiraysa ah in wixii nabadii ay kor ka soo dhiseen qolada siyaasiyiinta ahaa inay sustain noqon waayaan yani maxaa yeelay dadkii waxay aaminsan yihiin ma ahan shuruucdii shuruuc ayaga xaggooda ka yimid ma ahan boolisiyada la sameynayo boolisiyo kor looga keeno waayo taas marka waxay keenaysaa in maxaan ku dhahaa ay wixii aad usii socon waayaan dhammaan marka experienceskaas iyo tijaabooyinkaas horaa loo sameeyey dowlado badan Rwanda Sri Lanka ayaa laga soo sameeyey annaga marka ka Soomaali ahaan labadiiba waa u baahannahay yani oo ah in bulshada rayidkiina doorkoodii ay qaataan oo maxaan ku yiraahdaa oo ay isku xiraan taariikh ahaan markii dib loo laabto bulshada rayidka dowladnimadan hadda aan haysano ama jamhuuriyadda saddexaad dadka qaarkood waxay u yaqaanaan ama ay dhahaan waxaa la yiraahdaa waxay ku soo bilaabmatay bulsho rayid isku tagtay yani markii carta la isku tagay oo maxaan ku dhahaa dowladda la soo dhisay xaggaasay ka soo bilaabatay marka waa dowlad ku taagan ama ku dhisanba maxaan ku dhahdaa bulshada rayidka ku dhisan doorka marka bulshada rayidka uu soo badbedelay marka dambayso mar walba ay dowladda soo xoogaysato oo maxaan ku dhahdaa ay soo awoodeysato mar walba oo doorkoodii uu yaraado oo somehow abuurs badanna ay maxaan ku dhahdaa dareemaan
ay ahayd marka doorka ay leedahay waa door maxaan ku dhahdaa aad u weyn oo ah maxaan ku dhahaa ama nabadda ha ahaato ama ha ahaato accountability-gii iyo dowladdii in maxaan ku dhahdaa lala xisaabtamo xisaabtanka marka dhinaciisa markaa fiiro xisaabtanka qaybaha ugu muhiimsan ay ka imaanayso waxaa waaye warbaahinta waaye yani sektorka warbaahinta oo bulshada rayidka ka mid a ayagay ka imaanaysaa marka waa mahadsan tahay ustaad stanza waxaa weydiinayaa maxamed cabdiqaadir stanza sidee bulshada rayidka uga qayb qaadan karaan guud ahaan dowlad dhiska soomaaliya waa arkaysaa hadda jamhuuriyadda saddexaad oo ninkan ka dhawaajiyo kale yani iyo maanta meeshaan taagana markaa isku xirto qaab doorka ay ku yeelan karaan bulshada rayidka muxuu ahaay dowlad dhiska soomaaliya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mahad waxaa le ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinayaa intaa kadib akhyaarta barnaamijka soo qaban qaabiyeen oo ugu horeeya macadka barnaamijkan isku soo dubariday oo East Africa Institute for Peace and Governance oo aan uga mahad celinayo kaalinta ay maanta u istaageen intaa kadib bulshada rayidka marka la yiraahdo kaalin ballaaran bay ku leedahay laakiin kaalinteeda waxay noqonaysaa sida ay bulshada rayidka u egtaa lafteeda ayaa kaalin ku yeelanayso bulshada rayidka haddii ay tahay bulsho rayida oo leh aqoontii kartidii waayo aragnimadii iyo hogaamintii looga baahnaa markaad kaalin fiican bay qaadanaysaa kaalin fiicanna bulshada rayidka weligeed way soo qaadan jirtay tusaale ahaan haddaan soo qaadano bahda sugaanta ayaa ka mid ah bulshada rayidka ah haddaan dib ugu noqono taariikhii hore sayid maxamed cabdullah xasan allah naxariista ayaa wuxuu leeyahay rabbaa deeq leh roob baa qabow raaxa nabad baa leh dadka muxuu dareensiinayaa nabaddu inay tahay nolosha lagu raaxaysto nin kale oo gabyaa ahaayoo la oran jiray maxamed fiin oo silsiladii guba ku jiray ayaa wuxuu leeyahay gaal iyo islaam nabaddu waa gobol nasteexaada muxuu isagana noo sheegay gaal iyo islaam inaynan uusan ka maarmin inuu nabad helo gabyaa kale oo la oran jiray gabay nabsiile ayaa wuxuu leeyahay cabdulaahiyow nabaddu waa caano kuu raran cudur lama yeelosado adoo caafimaad qabo marka waxaan garan karaynaa bulshada rayidka weligeedba hataa tii hore haddii lagu noqdo jiritaanka soomaalida qayb muhiim ay uga jirtay waxaan ognahay sidaa walaalkii ugu horreeyay uu sheegay ilaa iyo burburkii markuu dalka burburay soomaali ay kala tagtay bulshada rayidka waxay ka mid ahayd qaybihii aadka iskugu hayay haddaan tusaale soo qaadano dalladaa abuurmay markuu dalka burburay aqoontii markay burburtay dalladaa abuurmay dalladuhu maxay ka shaqeeyeen aqoon-yahanada maanta halkan fadhiya in badanoo ka mid inay dalladaha ka soo baxeen ba laga yaabaa waa kaalinta muujin karto bulshada rayidka kaalinta ay ku lahayd nabadda marka laga hadlayo taqasus bay u baahan tahay lafteeda dowlad wanaagu taqasus bay u baahan tahay doctor anwar aada iyo aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa waxaa weeye dadka yar ee ku taqasusay arrimaha nabaddu ka mid yahay anigu taqasuskayga waa nabadda iyo horumarka yaan master ku sameeyey jaamacadda baxri ee dalka suudaan waxyaabihii aan baranay waxaa ka mid ahaa nabaddu lafteeda waxay noqotaa laba nooc negative peace positive peace nabad taban iyo nabad togan marka nabadda togan laga hadlayo waa nabadda le sinaan iyo cadaalad ay ku jirto nabadda taban dagaal markaa ma socdo laakiin dhalinyarada waa shaqo la-aan bulshada way rafaadsan tahay dadku way istuhumayaan caqabadaa jiro caqabadaha maxaa lagu xallin karaa marka waxaa lagu xallin karaa in horta adoon ogaanin dhibaatada ku haysato markaa dhakhtar u tagto dhakhtarku wuxuu kaa qaadaya wax la yidhaha medical history sooma taariikhdaada xagee laga hayaa da-daada waa imisa gormaa xanuunka isku aragtay marka adigoo xanuunkii aan ogeyn sababtiisa kooska aan ogeyn haddaa dul carartana mashaakil bay noqonaysaa marka bulshada rayidka ani waxaan oranayaan kusoo koobayaa haddii ay bulshada rayidka wanaagsan tahay kaalinteeda way wanaagsananaysaa haddii bulshada rayidka ay tahay daciifne kaalinteedu daciif bay noqonaysaa aad baad umahadsantihi state level jira oo stateka hadda waa is hayaa dagaalla waxa waaye hubanti la-aana iska jirta xagga doorashooyinka iyo waa is haystaa marka bulshada rayidka waana la fadhisaa waxaa matalaya jalwa matalaya
bajabo waayadan waa lagu dhaleeceeyaa doorkiina ma muuqda wixii maalgelina samayseen hadda inay burburaan dhexdhexaad xataa ma tiidiin waalidil ayaa leeyahay marka bal waxaa israacsataa su-aashaas oo probta ah iyo muxuu ahaayey doorka looga baahnaa in bulshada rayidka qaadato xalinta khilaafaadka. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد mahaddan ilaah bay u sugnaatay kadib waxaan u mahad celinayaa macadka East African oo madashan suurtageliyay iyo kasoo qaybgalayaashiisa dhammaan intaas kadib haddii aan kelmadeyda ka dhaho kaalinta bulshada rayidka ah dowlad dhiska iyo dabcan su-aasha kaleeto ahayd kaalintii rasmiga ahayd oo la rabay inay bulshada rayidka ciyaarto iyo wixii soo dhistay iyo kaalmihii wanaagsan ay soo ciyaartay maanta inaysan aad u muuqanin marka waxaan ku horeynayaa tan dowlad dhiska iyo kaalinta ay bulshada rayidka ku leedahay ama ku lahaani karto waa fara badan yihiin laakiin waxaan ka xusi karaa isla xisaabtanka ama hirgelinta isla xisaabtanka bulshada rayidka ah dowlad wanaagga waxay kasoo galaysaa in ay dowladda iyo dadka xafiisyada joogo okay khilaafaadka waan ognahay in wadankeenu khilaafaad ka jiro heerar kala gedisan oo doorashadiisa iyo state buildingka iyo meesha loo socday iyo dowlad dhiskaba la isku khilaafsan yahay aragtiyo badan baa halkaasi in bulshada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba ay doodo wanaagsan oo waxtar leh ka soo baxan looga baahan yahay tan hadda taagan waxay ku suntan tahay doorashada maadaama dalku doorasho xilligiisii la rajaynayay inay dhacdo ama 4 sano kadib doorasho ay dhacaysay waxaa moodaa hadda in hubanti la'aan siyaasadeed dalku galay bulshada rayidka ahna kaalintii ay ka lahayd ama ay ka lahaan jirtay waxaa moodaa inay ka shaqsan tahay waxaana keenaya dhowr sababood mid ah khilaafaad ama qubnaan sida de Soomaalida u quban tahay siyaasi iyo deegaan ahaan ama siyaabo kale u quban tahay inay bulshada rayidka u kala qaybsan tahay oo waxaa jira bulshada rayid samaysatay xilliga dowladda saddexaad majoriyada saddexaad ka horeysay iyo bulshada rayid federalismka la jaan qaaday marka wali isla falgalkoodii ma dhicin taasi waxa waaye dhaliilaha iyo meelaha caqabadaha ay ka jirto marka laga tagana de dowladda laftirkeeda heerarkeeda kala gedisan way wiiqaan bulshada rayidka ah oo kaalintii ay lahaayeen ama talooyinkii ay soo jeediyaan ama waxaa moodaa in ay bulshada rayidka la hoose ka garab sameeyaan marka taas ayaa waxay sababtay codkii dheeraa iyo kaalintii fircooneed inay meesha ka baxdo laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in codka hadda la mideeyo dalkuna meel xasaasi uu marayaa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in kaalin wanaagsan oo dhexdhexaad ah oo dalka iyo dadka u hiilinayo anagu uma hiilinayna siyaasi jooga mid soo socdo waxa naqoseeyo aan aragtidooda xambaarsannahay waa dhowr 20 milyan jamhuuriyadda ku nool marka waxaan doonaynaa in codkooda anagoo gudbinayno ama ka turjumayna in Soomaalida doorasho ama meel ay heshiis ku tahay loo wadar ogol ah isla ogol yahay in la aado waa meeshan ku talinayna waa maasanta waxaan rabaa su-aashan ustaad Ridwaan na weydiiyo bulshada rayidka door noocee ku leedahay la xisaabtanka dowladda iyo inay kor joogtayso oo ay hay'adihii dowladda iyo dadka iyo la xisaabtanto waa maadsantahay Farax waa ku soo noqnoqdo ummadayna raalihada waxaan rabaa doorka bulshada rayidka runtii waa cad yahay oo inay dowlad dhiska iyo nabadeynta ay qayb muhiim u yihiin laakiin waxa muhiim ah haddana jabo iga horeeyay uu sheegay qaab dhismeedka iyo siday u shaqeeyaan ururada bulshada laftirkooda sidii loo baahnaa ma yihiin dadkii laftirkooda capacity iyo kartidii dad Soomaaliga aad u ilaaliyo kartidii ay kula xisaabtami lahaayeen hay'adaha dawliga ah ay isugu xiri lahaayeen shacabkii codkiisa iyo hay'adihii dawliga laftirkeeda ma jirtaa marka kuwaas u baahan in dood dheer iyo faham fiican laga yeesho laakiin way caddahay oo haddii bulshada rayid oo karti fiican ay jirto
aqoon fiican oo hogaamin fiican leh oo shaki la'aan waaye in laftirkeeda ay qayb muhiim u tahay dowlad dhiska marka anaga especially hadda waxaan ku jirnaa marka la lahayo state buildingka hadda nidaamyo kala duwan oo wareersan aan qaadanay federalismka nooca waxaa laga doodayaa qodo kastoo dowladda hadda imaada hogaamiyaasha hadda inoo jooga waxay ka doodayaan ay isku dayayaan nooca federaalka Soomaaliya ku haboon midka hadda noo jira miyaa mid kale ma u baahannahay sidii u shaqeynaya iyo dimuqraadiyadda nooca u baahannahay laftirkeeda federaalka waxa ka horeeya Soomaaliya democracy-ga transitionka iyo reformka u baahannahay noocee waaye haddii dadka qaar ay u shaqeysay dimuqraadi la'aan Soomaaliya hadday u shaqeyn karto boqortooyooyin ma ku noqonaa laftirkeeda doodaha caadiga waaye marka bulshada rayidka bulshada dhihi lahayd maybe in baaris sax ah inta la sameeyo aragtida shacabka sidee loo matalayaa inay laftirkeeda evidence yeelato waaye shacabku waxaanay rabaan dadka sidaanay u nool yihiin waxaa ognahay muddadii 30 sano oo hadda soo dhaafo oo dhan waddankan dadka iyaga isku noolaa dadku waxay barteen dowlad la'aan inay noolaadaan hay'adihii dawliga ahaa adeeg ay bixinayeen shacabka qaybo badan oo kamid ah iyaga isku qabsada oo private iska noqday marka iyadoo taas laga faa'iideysanayo laftirkeeda cid ku doodayso oo bulshadii maybe hogaamintii bulshada rayidka ahayd ama ganacsatadii ama ku doodi karto oo dhihi karta war wixii noo shaqeeyay oo private ka ahaa laftirkooda private kooda aan ku hayno oo dawladnimada sidee kale looga faa'iideysan karo canshuuraha loo qaadi karo bulshadiina loo balaarin karo wixii aan private ku fiicneen oo public ku fiican aan public geeyno adeeg bixinta waa marka laga hadlaayo marka la xisaabtankii marka uu jiro meel baseline ah oo aan dhahayno muddadana burbur ku soo jirno xaaladda way naga xumeed sidaana u nooleen caadi miya sidaan hadday caadi ahayn xataa sidee caadi looga dhigi karaa si kale oo caadi ah hadda u guurayno sidee noqonaysaa laftirkeeda marka waxaan isleeyahay la xisaabtanka qaybta adeeg bixinta waa noocaas tan kale oo ah dadka iyo waxa ay u baahan yihiin nooca hogaaminta iyo siyaasadda ay u baahan yihiin iyadana muhiim waaye laakiin waxaa asal ah in laftirkeeda aan dhahno bulshada rayidka ahayd laftirkeeda ma midaysan tahay cod midaysan ma yeelan karaan because haddii qolada banaadir joogtana ay joogaan banaadir qoladii Jubbalandna meeshooda ay joogaan halkooda ay ka dagaalamayaan kuwii Puntland iyo Galmudug iyo laga yaabo inay marka macnaha haddii qolo kasta deegaanka ay joogto danaheeda ay matalayso wax fiican waaye marka intaasoo la isu keenay sidee loo midayn karaa sidee cod midaysan oo dowladdii wax ku dhisi kara loo dhigi karaa anaga wax dhisnaa u baahannahay focuskeenana inuu dowladdii si wax u hagaajisanaa inuu noqdaa muhiim ah si wax u hagaajisanaa wixii jiray waxa ka qaldanna si u saxnaa wax cusub oo u baahan dowladnimada aan ku matali karnaa u raadin karnaa waa maasanta marka sidee loo xoojin karaa awoodooda iyo tabartooda iyo inay dowladdii ku khasbaan ama aktarada oversight-kooda iyo doorkooda inay qaataan si rasmi u qaataan sidee loo xoojin karaa tabartooda بسم الله الرحمن الرحيم dad aan dawli ahayn aan mataqaanaa faa'iido raadinaynin oo si volunteerna u shaqeeyo si mataqaanaa kaga shaqeeya danta guud maxay tahay marka qaybaha Soomaalida oo ugu muhiimsan bulshada rayidka Soomaalida markii la fiiriyo waxa aad ugu muhiimsan oda dhaqameedyada markii loo fiiriyo mataqaanaa dawlad dhiska maxaa dhacay dawladda dhan waxa sharciyad siiyo oda dhaqameedyada waa ogtihiin ayaga ergada soo xulo kadib xildhibaanada ay doortaan kadib mataqaanaa madaxweynaha meesha ku imaadaa soo kale waxaa xoogan bulshada rayidka qaybaha Soomaaliya culamaa u diinka waa ayna qayb xoogan waaye tusaale ahaan marka mataqaanaa waxaa ka mid waa aragtay markii sharci baarlamaan qalad la geeyo culimadu waa hadlaan sidoo kale anaga bulshada rayidka waxaan leenahay koox yar oo xafiis yeelatay oo mataqaanaa hogaamiye ma ahan waxaa ka mid mataqaanaa dumarka dhalinyarada ka mid marka haddaan soo noqdo su'aashaada maxaa la dhahaa marka mataqaanaa sidee mataqaanaa horta koo bulshada rayidka waa in awaawilnaata waxaa la mataqaanaa 3 qodob marka la helo isbedel lacaa dadka waa in mobilized ahaadaan waa in awaawilnaadaan labo waa in mataqaanaa dabaqa dhexda jirto dabaqa dhex waxaa la wadaa qofku waa inuu baqayna shaqada laga ceyrina fiiro maanta qofka hadduu baqaa shaqada laga ceyrina ama dowladda mataqaanaa qandaraaska ka joojinaysa ama bulshada rayidka markaa fanay ka qaataan dowladda ka qaataan ama hay'adaha caalamka qofkaas mataqaanaa
ma madax banaanaan karo inuu dowladda mataqaanaa uu mataqaanaa kor joogteeyo sidoo kale waxaa ka mid ah dadka waa mataqaanaa oo bulshada reedka waxaa ka mid ah waxay ku milmeen dowladdii ku milmeen waxyaalaha wiiqa dowladdii ku milmeen waxaa jira mataqaanaa qaarkood waxa waa jagooyina la siiyaa haddana bulshadii rayidka waxay noqotay mataqaanaa koox yar ama ahan hadda waa mataqaanaa dadkiina aad ay u qaybsan yihiin oo dhaqameedkii doorkooda waxa waaye mataqaanaa wadankii waa social and political fragmentation ka jiro oo aad u xoogan oda dhaqameedku wuxuu matalaa mataqaanaa beeshiisu matalaa dantii guudaa ka baxday culamadii xataa waa sii qaybsan yihiin ayaga xataa waa aragta culamaa dowla soo baxday fiir culamaa dowla soo baxday culamaa waxaa jira hotel la joojiyo oo la jiifiyo wax laga diibaa jira soo dowladda mataqaanaa wax ugu sheegaa dowladdu u fadwoon hadday dhibka dowladda ma kicinaa marka waxaa jira qaybsanaa xooganaa jira waxaana keena faqrigaa keena maxaa dhacay dowladaha mataqaanaa annagoo camal oo fragile state ama dowladaha jalcan daacadnimada waa la gataa waa aragta daacadnimada waa la gadanaa ma jiro mataqaanaa qofka muwaadinka ma ku helaa shaqada ama mataqaanaa wuxuu u qalmo ku helaa daacadnimada laga gadanaa waa aragta waxaan qof beri inta jiro waa aragta shaqaa la siinaa beri qandaraasa la siinaa beri intuu joogaa marka waxaa meesha ka maqan mataqaanaa dadkii ma haastaan daqli madax banaan waxaas dhan waxay wiiqaysaa inay mataqaanaa bulshada rayidka si xoogan kaga qayb qaataan la xisaabtanka dowladda laakiin hadday xoogan yihiin sida mataqaanaa kuwa mataqaanaa wadamada casriga wax badan ay sameyn karaan budgetka ay kor joogtooyi karaan budgetka mataqaanaa haddii loo badiyo dhinaca mataqaanaa oo mudnay wasaaradaha hadda budgetkeena wuxuu u badan yahay fiir wuxuu u badan yahay maamulku u badan yahay hadda xafiiska madaxweynaha maamulku lacagta ku baxda iyo waxbarashada iyo beeraha iskuma dhigmaan bulshada reed kama warhayaan cilmi baaris ma sameeyaan fiir budgetka fiir dowladda fiir maamulka iyo xafiiska iyo ijaara lacagtana maamul ay ku baxda social development ma ku baxdo beeraha ma ku baxdo waxaas dhan ayana waxaa rabaa in research sameeyaan oo mataqaanaa bajedyada mataqaanaa kontaroolaana la rabaa bajedka soo maxaa loogu badiyay madaxweyne in cadaadis saaraan inta in laga soo gooyo waxaasaa la rabaa mataqaanaa marka wax badanaa jiro marka waxaas dhan mataqaanaa inuu ku dheeraado maro